soo dhaweynaya doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Gaalkacyo isla markaana ay ku tartamayaan ilaa afar ka mid ah musharaxiinta doonaysa inay qabtaan hoggaanka ururka saxafiyiinta gobolka Mudug. Waxaan rabaa inaan dhowr kalimood aan ka hadlo intaan xafiiskan joognay tiimka ila shaqeynayay muddadii aan xafiiskan joogno oo muddo 2 sano ah waxaan xoogaan saarnay inaan tababaro kala duwan aan siino guud ahaan warfidyeenada gobolka Mudug gaar ahaan kuwada ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. sidoo kale waxaanu ka shaqeynay muddadaan xilkaan joognay inaan ka shaqeynay nabadda gobolka Mudug annagoo guud ahaan warfidyeenada ama warbaahinta gobolka Mudug oo xilliga colaadaha loo adeegsan jiray isla markaana siyaasi walba ama qof kasta oo doonaya inuu dhibaato ama dhibaatooyin kala duwan uu shacabku la wadaago inay warbaahintu u adeegsan jiray. laakiin urur ahaan waxaan ku guuleysanay inaan xakameeno isla markaana madaxda warbaahinta gobolka Mudug aynu ka saxiixno heshiis ku aadan sidii nabadda gobolka Mudug ay uga qayb qaadan lahaayeen. muddadaan xafiiskan joognay waxaynu ka shaqeynay ama safarro kala duwan aynu ku tagnay gobolka Galgaduud annagoo xoogaan saarayno sidii loo sameyn lahaa urur ay ku mideyseen ururka saxafiyiinta Galmudug. haddana waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeysay oo lagu dooranayo hoggaanka sare ee ururka saxafiyiinta Galmudug. waxaan filayaa hogaamiyaha soo bixi doona inuu dhammaystiri doono inta dhiman. waxaan aad iyo aad ugu xumahay maalintii doorashada ururka saxafiyiinta gobolka Mudug aan u tartamayay inaan balan qaaday inaan xoogaan saari doono sidii loo soo deyn lahaa walaal nagu qaali ah waan muddaan soo wada shaqeynay haddana ku xiran Jigjiga Rooble Maxamed Dirir. ka urur ahaan waxaan xoogaan saarnay inaan soo deyno Rooble Maxamed Dirir laakiinse waxaan daliil weyn aan u jeedinaynaa wasaaradda warfaafinta Galmudug iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ka seexday kadib markaan soo gudbinay caddeemiyihii ku aadanaa waxa uu Rooble uu ku xiran yahay iyo halkuu u socday. waxaan filayaa in hoggaanka cusub ee la dooran doono inuu ka qayb qaadan doono sidii uu u soo deyn lahaa ama processka hadda socdo oo aan ku wareejin doono inuu ka qayb qaadan doono sidii wariyeena Rooble Maxamed Dirir oo nin reer Gaalkacyood ah oo aan isla soo shaqeynay kana mid ahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada gobolka Mudug in la soo daayo. hadalka ma badinayo bahda warfidyeenada gobolka Mudug waxaan ahay qof mar kasto idinla shaqeyn doono laakiinse waxaan maanta idinku soo celiyay ammaanadii iyo xilkii aad ii doorateen waana sababta maanta loo qabtay doorashada hoggaanka ururka saxafiyiinta gobolka Mudug. aad iyo aad u mahadsantiin.